dhammaantiin saaxiib aad baa idin salaamay dhalinyaradan aad u jeedaan waa dhalinyaro Soomaaliyeed waxay saf ugu jiraan waa shaqo wadanka shaqo la'aan ma ka caban jirteen Canada haddana waxa laga cabanayaa saaxiibayaal shaqo la'aan employment agency ama xafiisyada la iska diiwaan geliyo shaqooyinka ah in dadka shaqooyin u diro warehousada u diro baa saf loogu jiraa anaga Yurub baan deganahay ilaa muddo 5 sano weligay ma arag meel saf loogu jiro employment agency waxdaan weligay ma arag waa lagu yeeriyaa wadankan wadamada Yurub aan joogo wali wadamada Jarmalka kale u badan shaqo dadka iyo Belgium oo kale shaqada dadka aad baa loogu baahan yahay saf baa sheegaysaa taleef magaalada daalaya inaad timaadid bilaa balanna waa lagu imaadaa marka meel haddii aad saf loogu jiro waa meel balamiintii buuxsameen waxa laga yaabaa maalinka inaad ka soo laabatid adoon xataa lagu diiwaan gelin marka muuqaalkay kuma socdo dhalinyarada Canada dhalinyarada qurbaha meel ba joogto Soomaaliyeed buu ku socdaa tusaale ba Canada ku soo qaatay shaqo la'aanta jirta wad u jeedaan waxa loo careynaa waa xamaali iyo 9 to 5 iyo in $2,000 aad sodon bari ku shaqaysid intaasna biil intifaac kaga baxaan saaxiibayaal maanta waxa la gala dunia casri ah computer da heli kartid internet aad maanta heli kartid adigana qof diyaarsan aad tahay wax baran karo xirfad baran karo maanta wax awoodaa in shaqo xafiiseed aad inta iska fariisid computerka qaadid aad halkaas wax maskaxda aashishid marka waa ku dareemi karaa nin dhalinyaro baa tahay waliba aan mataqaan reer Uganda ahay dhalinyaro badan oo Canada jooga saaxiibanahay 2 sano Uganda jooga dhalinyaro badan oo Canada xabna waan nahay qaar baa ku soo dhaweeyay hadda Canada jooga iswaxna gobolada qaar way ii sheegeen in shaqo xun ay ka jirto meesha waxa way si lamoodii is ahayn marka waxaan kula taliyaa niman yahow xirfadaha la barto skillska hala barto dhimana saaxiib shaqada aad warehouse-ka tuuro laakiin at least bishii $30 $50 xirfadaha online-ka ku maalgasho muuqaalkan rabo inaan kugu sheego dhowr xirfado muhiim ah ku maalgashan kartid naftaada marka waxaan ogaataa waxa ugu muhiimsan qofka maalgashto waa naftiisa weey invest by yourself naftaada it will pay you back it will pay the price waa boqolkiiba weey $2,000 baa laga inaa bish ku xasameysid laakiin ugu markaa ganacsi samaysid 5,000 4,000 6,000 inta halbsid baa gaari kartaa haduu Ilaahay ku barakeeyo adigana haday qof joogteen commitment iyo consistency aad la timaadid inaad guulaysid baa laga yaabaa laba shay baa raasaxa marka inaan wax ka bedelno mindsetkeena iyo hab fikirkeena aqbal laga rabaa iyo hab dhaqankeena labada hadii aad wax ka bedeshid go'aan sax la timaadid waa guulaysanaysaa saaxiib aniga waxa deganahay dalka Belgium dhalinyarada safka hadda ku jirta isku taariikh baa aniga laftigeena naga soo martay Malaysia deganaa halkaas wax ka soo bartay Uganda mid ay kadib mid dacwadan ka bilowday halkan maalinta halka ay markay 2018 shaqo la'aan xun baa ahaysay oo ku faraxsan inaan meel xanaale aan shaqo kale aad ugu faraxsan wali waa raadin jiray ina baaskiil baa wali ku aad jiray marka waxyaalaha go'aansaday bay kamid ahayd intii ii cutimi weyday shaqooyinka xamaaliga aan aniga iska dhex arki waayay mustaqbalkayga aan ka dhex arki waayay qofka xitaa ma dalxiisi karo moos hadda wadamada Yurub aan joogaa qofkii bil baa lagu siinaa fasaxa koob iyo 10 bilood kale wax xamaalisa bil fasaxa 20 biri ah inta kale waa iska weekend 22 biri waa mustaqbal la shaqeeyaa inta kale waa iska weekend 22 biri baa fasax lagu siinaya inta kale waa shaqaysanaysa lacagtii kuma filna way kugu gartaa dhalinyaro waxaa jirta mataqaan xafiiskan ugu yimaado magaalada mataqaan Yurub taan marka mariyo kale aan marka ku kulano waxay leeyihiin ma weyn dabcan da aan aniga inuu xiliniyo 3 sano shaqaysanaa 20 sano xamaalna qaar baa waxba hay ninka uu fiican hal guri iyo hal boos inuu meel ka tago ninka uu fiican gaariyana iska haysto laakiin wax kale intifaac qaar baa waxay inaa guuraha rabnaa oo hadda waxa wadamada qurbaha Masar waa la nacayo kale inaa Kenya oo kale Masar oo kale Malaysia Hindiya Turkiga inaa guuraha rabnaa Uganda haddana niyo waxna biilo la anahay oo waxa wada isaaqadii aad ka tagno hadhow lacag baa la iskaga bixiyay marka mastari training baa siya tababar siya xirfadaha bara online in laga shaqeysan kara bara oo fursadan ay tahay fursad jirto marka saaxiib waxaan ku soo gabagabeynaa dhalinyarada Canada joogta saaxiib adin karta caqabado in wadanka ka jirnay baa maanta mataqaan experience greening ee ku Yurub joogo kombiyuutar waa heli kartaan xogaa dhaqaale waa heli kartaan koorsooyin ama skill aad ku iibsataan waxa heli kartaa mataqaan saaxiibiyaan waqti iyo meel qurux badan service payment system ka bangiyada wadanka way hagaagsan hatta ina skill barat lacag ka bis muhiim ma aha YouTube ka maanta waxa ka baran kartaa boqolaal xirfadood adiga ganacsi ka bilaabay dhalinyarada Canada joogtaan fursado badan baa haystaan aniga mentor baa musal dad Canada joogan waxaan siyaa macallin baa ahay fursado wadanka ka Soomaaliya badan wadanka soo gashay hadeer marka Canada laftigeeda ganacsiga ka sameyn kartaa oo runtii waxa way aad u tiro badan oo agency yar oo service adeeg bixiyo dhaqaale fiican aad ka sameyn kartaa marka guud ahaan masaaxiib dhalinyarada qurbaha joogto iyo kuwa wadanka jooga shaqo la'aanta way jirtaa oo dhalinyarada wadanka qurbaha u soo carariyo kala shaqo la'aanta way jirtaa laakiin waxa difference garan karo arintan ka bixin karo oo dadka gaalada cadaankaana markasta ma ogaataa shahaadada meel kasta ka imoo qaar China kimid waxa jirta dhaqaatiir haddana ma waxa way xamaal ku jiro ku jiro mar hadda qurbaha waa loo siman yahay waxa soo bartay almost dadka waxa mid aanu kala Yurub baan joogaa dadka soo bartay neersiga baa la qaataa iyo qof IT waxa ka yaqaan laakiin engineer iyo dhakhtar guud iyo waxa soo dhimata economic iyo bangiga ku soo bartay financial iyo master waa lagu cabaa de sheegna Soomaaliya u shaqo ma sheeg laakiin gaalada shaqo ka helamaysa marka xirfadahan laakiin adoo wadanka joog hadii aad barto xitaa Canada iyo Mareykanka Yurub aad soo gashid waa ku shaqaysan kartaa oo waxa way freelancer ahaan baad ugu shaqaysan kartaa xitaa dad ajaanibta ugu shaqaysan Soomaalida wadanka joogtay baad service bixin kartaa shirkada asaasi kartaa oo halkaas waxa way xafiis ka furan kartaa halkan iyo wadanka waad ka furan kartaa aniga dadka waxa ka saaxiib xirfadan ka faa'iideystay halkan wax xafiiska aan ka deganaa dalka Belgium almost mataqaana sanad ka badan baad deganaa ka furnay wadankiina xafiiska ku leedahay shirkada 6 qof dhalinyaro ah ila shaqayso kaminiga wax bay ka shaqeeyay web designers leh master aan shirkada waxa la yahay mataqaana web designer la yahay waxaan la academy balan baa la yahay consultant bixinaa koorsooyin ka mid mataqaana cryptocurrency gudaha mataqaana online business web design e-commerce baan bixinaa marka adigina sidoo kale waa sameyn kartaa dadaal u balaga bixaya video ma canaan iyo dhalinyarada Canada inaan ku deganaya canaan laakiin waxaan rabaa inaad fursad kala jirto qofka duus ogeyn
wixii dee canaan kuma laha marka muuqaalkan wuxuu daaran yahay kaliya inaan saaxiibka idin tuso inay jirto fursad lagu shaqaysan karo aan taa ahayn laakiin dadaal bay u baahan tahay wax ma ciyaar wax dadaal u baahan weeye weelaan sanad u baahan weeye inaad shilibka dhulka dhigatid aad jabtid shaqadaada ka imo koorso qaado shaqadaada ka imo wax baro shaqadaada ka imo buug akhriso shaqadaada ka imo podcast dhageyso shaqadaada ka imo intaad maqaayadaha fariisan Starbucks iyo kafeeda aad fariisan lahayd abda computer la saaxiib xirfado baro cyber security baro cryptocurrency baro coding baro programming baro in waxa barta e-commerce baro dropshipping baro sida Amazon mataqaana looga shaqeysto baro iyo guud ahaan sida content creation lagu soo biiro aydan xirfad fiican marka skillkaas you name it boqolaal skill baa jiro taladaas aan saaxiibay dhalata inaan siiyo aad baan idin salaamaya wixii su'aal aqabtaan comment iyo jawaab